adoo ma joogin oo ma jiifan gurigayga feker baa idhiibay waqti kasta meel kasta aan joogo marnaba madaxayga kama dhammaado 5 milyan aan shala sheegan karin meesha shala ku dhasheen taasoo u dheer tahay maalin ka dambaysa magaceena hooyo hoos u sii dhacayo ii sheeg sababta ama macnaha ay arinta u taagan tahay maanta waxaan arkaa wadan magac wanaagsan leh dadka lehna saas bay qiimo u lahaayeen hadday maskaxdooda ka xogan lahaayeen isna ceebka aan macnaha lahayn isruufka aan meel gaarsanayn baa wadanka Soomaaliya maanta kala firdhiyay goorme aan ogaan doona arrimahayna goorme baan ku raaxaysan doonaa nolosha goorme aan ogaan doona arrimahayna goorme baan ku raaxaysan doonaa nolosha maanta meel kastaad adduun weynaha ku nooshahay waxaa jiro su'aalo fara badan oo ka mid ah wadankeed baad ka timid imise sano baad wadankeena ku nooshahay iyo goorme baad wadankaaga ku laabanaysa taasna waxay ku tusaysaa wadankaaga inuu marnaba ka dhammaanin madaxaaga orodoos ku fiiri murayada ama weydii deriskaaga maanta nolosha meeshii marayso shaki kuma jiro inuu dhaqankeena u baahan yahay dib u habayn ama meelayn dib u habaynta adigiyo dabeecadaada waatan ku horseedaysa guusha aqoon kororsiga farintan waxay ku saabsan tahay Soomaalida gaar ahaan dhalinyarada ku nool qurbada kuna jiro halganka nolosha goorme aan ogaan doonaa arrimahayna Assalamu alaikum waan idin salaamay Soomaali weyn waxaan ku suganahay Hardheere waxaan soo booqday qaxootigan waxaan leeyahay inuu gargaar degdeg ah loo soo sameeyo Soomaalida meeshan ku rafaataysan oo ku dhawaataysan dhammaantiina inta qurbaha ku nool goorme baan ku raaxaysan doonaa nolosha goorme aan ogaan doonaa arrimahayna goorme baan ku raaxaysan doonaa nolosha